waa inaan ogaano raising capital raasamaalka sida ilo loogu helo ilo dhaqaale budgeting and forecasting odoroska iyo saadaasha iyagaa haddana maaragtay maxaan ku qaabilsan corporate strategy istaraatiijiyadda guud ee maaragtay shirkaddu iyagaa qaabilsan mergers and acquisition haddii aan baaxadeennu inaan weyneyno aan doonayno oo aan iibsano shirkado kale oo jiro xirfadoodii iyo waxay hore u qabteen inagoo ka helnay amaba aan curino shirkad cusub amaba aan isku darsanno maaragtay shirkad hore u jirtay intaba dadka ka shaqeeyo waa finance department. Okay, lecturekii labaad aan kusii xiriirino bookkeepingka marka waa maxay bookkeeping aan isweydiino. A bookkeeper maintains the company's books. Company's books waxaa la yihahdaa diiwaanada maaliyadeed. Books of prime entry waa la yihahdaa, books of original entry waa la yihahdaa, books of first entry waa la yihahdaa. waxaa waaye waa buugag kala duwan oo aan idin sheegi doono insha allahu tacaala noocyaha ay kala yihiin. Cash booga ugu horeeyo diiwaanka lacagaha cadaanka ah waa inay gooni u baxaan. diiwaanka lacagaha cadaanka waa inaan lagu qasin deynta iyo qaanta iyo inaan lagu qasin weeyaan. Cash book oo usii kala qaybsamaya laba qaybood, receipts and payments. Purchases day book waxa la yidhahdaa jiro ama gadashada, diiwaanka gadashada. wax allaala waxaad ku gadatid deyn waa inaad diiwaanka gadashada gelisid. Sales day book diiwaanka iibka weeyaan, wax walbo aad deyn ku iibisid waa inuu galaa meeshaas. Petty cash book waxaa waaye lacagaha yar yar, journalskana waa intaas wixii ka soo hara. diiwaanadan waa inaad maintain garaysaa. waxaa ku xiga sales ledger mid la yiraahdo. sales ledger, sales day buu waan soo marnay, ha ku confuse garayn ama maaragtay ha ku wareerin. sales ledger waxaa la yiraahdaa diiwaan maaragtay geliyo. sales day book waxaa la yiraahdaa diiwaan dadka deynta maaragtay inaga qaba ee customerka ah. customer walba magaciisa iyo inta uu naga qaatay taariikhda la soo dhaafo oo dhan, inta uu bixiyey, balancega inta ku taagan ayuu ku kala cadeynaysaa. sales day book kaas kama helaysa sababtoo ah waa just list. maanta wixii aad iibisay un baad qoraysaa. hadhow marka millions of transactions markay noqoto kama soo dhex saari kartid ruuxii, way adkaanaysaa. diiwaan gaar ahaan u sameynay marka oo sales ledger la yidhaahdo ayaa loo sameeyey in dadka xisaabaadka maaragtay qof walbaba iyo xisaabta hoos imaanayso in la geliyo. purchases ledger sidoo kale maaragtay wax allaala wixii aan soo iibsanay ee deyn aan ku iibsana qaan inagu ah ayaan iyadana gelinaynaa. waan kala saarnay marka waa 2, 4, 6, 7 book. discounts buugaan samayn karnaa, returns buugaan samayn karnaa, inta aad maaragtay u baahantaha samayn kartaa. laakiin caadi ahaan intaan ayaa ugu muhiimsan in la kala saaro. haddaad doonaysid maamule in ganacsigaagu waxna aynan kaa lumin waa inaad u samaysaa arrintani. buugaagtan waa inaad kala saartaa sida ugu dhaqsiyaha badan, deetana aad eegtaa in integritygooda ay waxba gaarin. mar walbaba ay yihiin record information oo relevant, reliable, cost effective, timely ah waa inaad heshaa. marka diiwaanada waa intaan. waxaa muhiim inaan soo xasuusano diiwaanada kama mid aha double entry waxa loo yaqaano. waa list, it's only list, waa statement oo keliya. This book records all cash transactions. aan hore u sheegnay cash book is subdivided into receipts and payments. waxaa loo kala qaybiyey in iyo out. cash booki waa book caadi ahaan sida t account markii la sameynayo waa aragteen waa garbad 2 safxad leh soo maaha. safxadna waa midig midna waa bidix. marka halkii buuga waxaad u kala qaybsan kartaa in iyo out, receipts and payments. laakiin kor waxaad uga qoraysaa cash book. okay, purchases day book waa diiwaanka gadashada maalinlaha ah. This book records all purchases on credit. bookani wuxuu keediyaa wax gadashada qaanta ah, accounts payables ka meeshan galayo. This is not part of double entry bookkeeping system. waa hore usoo sheegnay waa bookkeeping iyo accounting yaa la isku qaldin. bookkeeping meel uu ku egyahay jirto, accountingna meel uu ka bilaabanaya jirto. bookkeeping waa listing all transactions as it occurred. transaction kasta ama mucaamalo kasto markay dhacday iyo goobtay dhacday
waa in la qoraa halkaasuu ku eg yahay bookkeeperka skill badan uma baahna laakiin ilaalin badan uu u baahan yahay okay sales day book marka diiwaanka maalinlaha waaye this book records all sales on credit wax walbo aan dayn aan ku iibino weeyaan and it's not part of the double entry bookkeeping system journal marka waxaan dhahnay intaasi wixii ka soo haro ayaan maaragtay aan ku qoraynaa journalka okay waxa inoo xiga marka receivables ledger galka deynta maqan aan u bixinay wuxuu asigana maaragtay galkaani inoo summary inoo sameynayo statement hebel intaasaa lagu leeyahay intaasuu bixiyey intaasaa ku harsan hebel intaasaa lagu leeyahay intaasuu bixiyey intaasaa ku harsan magac ahaan isla markii hore usoo qaban kartaa payables ledger sidoo kale waa galka qaanta waay waxaan nalagu leeyahay intaasoo lacag ah adigiyaa maaragtay qoranaya waxa lagu leeyahay payables accounts is recorded in general ledgerka diiwaanka guud ayaa la yidhaahdaa diiwaanka guud waxaa soo gelaya all transactions tii account kastoo la sameeyey diiwaanka guud ay imanaysaa waxyar raalli ahaada kan automatic aan ka saaraya relationshipka u dhexeeya marka bookkeepingka iyo accountingka maxay yihiin a bookkeeper records transactions when it occurs and also bookkeeper records sales and purchases on credit bookkeeperka waxaan dhahnay waa diiwaangeliye meeshuu qasnaduu fadhiyaa wax walba siday u dhacaan kugu qorayaa wax kale oo double entry ah shaqo kuma lahaanayo and the books are simply lists and not part of double entry were very important bookkeeper xariif ah laga yaabaa in uu maaragtay maxaan ku dahay accountskii uu wax analyzed cash book wax lahaa uu sameeyo oo maaragtay maxaan ku dahay account kasto iyo meesha ku dhici doonto uu u sii fududeeyo accountingka laakiin it does not mean inay double entryga ay ka qayb ka tahay taasi waa arrintaasi waa muhiim in aan ogaano and accountants marka post the transactions into general ledgers accountantigii ayaa ma aragtay markay bishii dhammaato ama hadduu kambaniga aada u baaxad weyn yahay isbuuc ama maalinlaba ayaa waxaa loo post garaynayaa marka xisaabaadkii general ledger ama nominal ledger waxa la yidhaahdo oo ah diiwaanka guud meeshay wax ku wada xaroonayeen isagaa looga baahan yahay double entrygii marka debits iyo credits isagaa looga baahan yahay way kala baxeen okay kadibna isagaa looga baahan yahay general ledgerkii inuu accountskii soo wada xiro oo uu geeyo trial balance kaasoo laga sii diyaarinayo financial statements marka way kala qaabaysan yihiin nin waxaa u dhiibatay qasnadii wixii dhaco iyo qoraa tiri ninna waxaa tiri samee double entrygii ee ii diyaari bayaano cadcad ee aan ogaan karo assetskayga liabilitykayga iyo capitalkayga soo maaha saddexdaasaan uga baahannahay business interestkayga inta aniga aan keensaday inta aan meesha ku maalgashtay inta liigu leeyahay inta ii soo harayso miisaaniyaddeedii ii sheeg okay waxaan marka financial accounting aan kusii xirmaya marka si automatic ah waa bookkeepingkii aan soo dhamaynay financial accounting aan kusii xirmaya financial accounting deals with recording and reporting financial transactions iyagana maaragtay waxaa loo baahan yahay recordingkii aan weli ku jirnaa iyo warbixintii diiwaangelintii skills required waxa weeyaan in qofku uu yaqaano nidaamka double entryga la yiraahdo financial accounting waa inuu yaqaanaa formula jirta marka double entrygii oo maaragtay maxaan ku daayay debits iyo credits la yiraahdo insha Allah taala waa ka sheekeyn doonaa bani aadan kuba bilowgiisii